صومالي وامد واولي يوميرح مطانا ويو نلبيك ورثني إيدي بدحي مكمارنتا مضحو مجها مكمارنتا مسكحيو أقول مكمارنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وحنا ونحسن كسر دواد برنامج جارة وحين نوصل تجشي مانتا إن مقالة دالفت ودنك نيدرلاند عن كلنا دكتور عمر أحمد وهلية وكميدا أقوياء هذا الصوماليات كل قناة ودنك دكتور عمر مركور وكاجم هاد علينا وقتي غالية عاد نصيصي إن دكتور عمر مانتا وحان كوضع شيء كيسن دونا عريمة دورة وعن إسلا فلانقين دونه marka ugu horeysa Dr. Umar inta aan su'aalahay u guda gelin waxaan rabaa inaad si kooban dadka aan garanayn qofka uu yahay Dr. Umar taariikh nololeedkaagii iyo xiriirkii aad soo qabatay iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee aad soo qabatay inaad inoo soo koobto tafadal walaal aniga waxaan ku dhashay dhalashadayda baadiyo oo dhulkan degmada Cadeedo hoos yimaada baadiyahaas ayaan ku dhashay marka magaaladaas dadka soo jeedaan ka mid ahay waxbarashadeedii dugsiyaasha carabta ee Soomaaliya ka jiri jiray ardadii ka baxdanaa ka bacdina Masar wax ku bartay jaamacadda Al-Azhar ka soo baxay ilaa 2000 ayaan waxaan ka qaatay PhD ka qaatay magaalada Qaahiro marka ka bacdina waxaan ku noqday dalka dawladii ugu horeysay Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaan la shaqeynay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan xafiiskiisa ayaan dadkii madaxda ka ahaa ka mid ahaa madaxweynaha la shaqeynay ilaa ay ka dhamaatay markii dambe oo maxkamaduhu ay soo baxeenna waxaan ahaa maareeyay ka daweynay Muqdisho furay oo maaragtay maxkamada u qaabilsanaa 6 bilood macallin jaamacadeedna waa ahaa jaamacada islaamiga iyo jaamacada Muqdishona macallin baan ka ahaa markii dambe waan soo galay Yurub soo galana jaamacada la jiray jaamacada Awroba al-Islaamiga Rotterdam ku tiilay 12 sano ayaan guddiga waxbarashada ka mid ahaa oo maaragtay macallimiinta iyo guddiga lajna cilmiga la yiraahdo maartay rasaa'ilka waxyaalaha sharaafa kamid ah ayaan kamid ah Sheekh Umar adigu laftiga maadaama aad golay maxaakiimta ka tirsaneyd oo kooxahan islaamiyiinta fikrahan markii la yiraahdo laga yaabo in dadka ku soo dhici karto in yiraahdo Sheekh Umar uu kamid ahaa wana xaaladoodii uu la socdaa dagaalkan dabada dheeraaday oo Soomaaliya shabaab iyo dawladda u dhaxeeyay oo soo bilowday xilligii madaxweyne Cabdullaahi ilaa Sheekh Shariif ilaa Xasan Sheekh ilaa Farmaajo dagaalkan aan dhamaanaynin maxay kula tahay goormuu dhamaanaya Soomaaliya waliba caasimadda Muqdisho dadka degan iyo hareeraheeda yani dagaalkaas waxa la dhihi karaa dagaalkii Soomaaliya ka dhacay oo ay shabaab wadeen qasaaraha ugu badan 80% hadaysan ka badnaynba dadkaas soo gaaray maxaa ku koobay shabaab in culayska ugu badan ay soo saaraan Muqdisho iyo agagaarkeeda asbaab badan ay leedahay sabab ay ugu badan oo leedahay horta mid waa faraaqi ka jiray maalintii ciidamada Itoobiyaanka ah ay soo galeen magaalada Muqdisho ay soo galeen dawladda Cabdullaahi Yuusuf ay dabada ka riixaysay dhibaatadaas oo looga wixii ka dhacay meeshaas dhalinyaradaas waxay ka mid ahaayeen dadkii maanta ka hortagay Itoobiyaanka oo naf iyo maalba u huray ka mid ahaayeen dad badan oo Soomaaliyeed ka qayb galay in Itoobiya damaceedaas laga hortago dibna looga saaro dalka badan ka bacdina waa tii lagu guuleystay dawladda Soomaaliya dib u soo noqotay Shariif marka dagaalka durayso
dabcan dhaliishaadu dad badanna waxaa suurtagal inay kula qabaan dadna ay ka aragti duwan yihiin laakiin maxaa qaldan oo aad isleedahay haddii waxaas sida loo wajahay si ka duwan loo wajihi lahaa dagaalku inta guulaha hadda adiga aad ku tilmaamayso guuldarrada waa lagu guuleysan lahaa maxaa kuu muuqdo qaldan marka laga tago dadka aad sheegtay oo dagaalka khibrad u lahayn oo aad tilmaantay marka laga tago ma jiraan waxyaabo aad isleedahay waxaana qaldanaa haddii sidaan loo sixi lahaa dagaalka guulaha laga gaari lahaa bismillah waxaan isleeyahay haddii ciidan fiican oo tababaran oo qalabkiisa wata qalabka loo baahan yahay leh ilaa dawladda waqti ay cunaqabateyn baa saarneed waxba lama keeni karin waa run waa wax jira weeye laakiin haddii aan meeshii qalabkii oolino ninka kaasoo horjeedaya adigu aad isku wada mid tihiin amaba uu kaa tababar fiican yahay amaba uu kaa qalab badan yahay si aad natiijo uga gaartahay waa masalo dhib badan waaye meesha aan ka haysto waxa weeyaan saraakiisha wax hogaaminayda ama dagaalka qorsheynayda iyo maxaan ku yidhaha askarta dagaalka gelayda lama kala yaqaano wixii waa isku qasan yihiin aqoon darridana keenayda iyo nidaam xumada meesha hataa allaa keenayda dowladda markaan dhaliilayay laba qodob baan ku haysta ugu muhiimsanaa ciidanka tababarkiisa oo aan maaragtay aan saa u fiicnayn iyo qalabkiisa ayaan dowladda labadaas tababarka ciidanka iyo aqoontiisa iyo qalabka ay wataan labadaasba waan dhaliilay wayna dhaliilan yihiin qodobka kale oo asagana aan dhaliilay waxa weeye madax badan oo ka mid ah dowladda oo ayaguna inta soo qaateen tuutayaal goobihii dagaalka iyo ciidamada taagnaa oo weligoodna rag aan weligoodna meel xabad lagu ridayaba aan tegin marka kaasuna taswiir xumu bixinayo qofkaan inuusan dagaal waxba ka tari karin dawacadahay sabab uu marka tuuta inta u qaato goobaha uu istaago yiraahdo meel heblan tagay xaggan taagana macna daridaas iyaduna ay ku tusinayso taan ka hadlay taa waaye niman badan oo baarlamaan ku jira iyo inta soo yaaceen tagayo goobihii dagaalka tagayo leh waxbaan habeynay meesha aan ka haysto waxa weeyaan saraakiisha wax hogaaminayda ama dagaalka qorsheynayda iyo maxaan ku yidhaha askarta dagaalka gelayda lama kala yaqaano wixii waa isku qasan yihiin aqoon darridana keenayda iyo nidaam xumada meesha hataa allaa keenayda guuldarriduna halkaasay ka imaanayda soomaaliya marxaladda ay soo martay marka aad fiiriso dhowr iyo 30 sano qaranjab uu Soomaaliya haystay dhibaatooyin badan oo dalku uu ku sugan yahay wax waliba loogama xisaabtami karo in sidii loogu talagalay ay u qabsoomaan haddaan su'aal kale ku weydiiyo waxaa jirta kaalintii culimadu inay bannaan tahay oo madaxweynuhu sanadkan hadda dhamaanaya bilowgiisii shir buu u qabtay culimada wuxuu ka codsaday dagaalka inay qayb ka noqdaan dhinaca wacyigelinta kaalintaasi way bannaan tahay ma isleedahay ismalihi oo shirkii meesha lagu qabtay hadda culimadii oo dhan meesha la isugu keenay maalin kastana way hadlaan oo waa joogaan meel kasta masawiyaadka kala gedisan ayagoo ay hadlaan waxa maaragtay ka jira meesha iyo sida ay tahay in la maro way ka hadlaan culimadu marka haddaadan lahayn culimadu qalabka ha qaateen haddaadan lahayn waxaan u maleynayaa dowrkooda inay maaragtay meelna laguma wada dhameeyo hadda culimadu meel iskuma wada yimaadaan kulligood laakiin halkiinimo ama kooxdii u hadashaan matalaysa marka culimadu dowrkooda inay qaateen aan u haystaa haddii gaabis jirana wada wax bini aadan loo dhiibay gaabis lagama waayo intii uu dagaalkani socday waxaa jira eedeymo loo jeedinayay dowladda oo ku saabsan qasaaraha ciidamada dowladda ka soo gaara weerar rogaal celisa oo ay al-shabaab ku soo qaadaan deegaano ay ka baxeen oo ciidamada dowladdu ay qabsadeen maxaa sababay in qasaare baaxaddaas la eg in uu soo gaaro ciidamada dowladdu marka ay timaado deegaano horay shabaab looga saaray oo ay ku soo laabteen horta awalan inaan fahamno waaye dagaalka hadda lala galay shabaabka sida badan dagaalba ma dhaco waxaad arkaysaa ciidan baa meel yimid baad maqlaysaa kabacdi ayaguna waa ka baxaan waa meel heblo waa ka baxeen baad maqlaysaa maalinta dambena waxaad maqlaysaa waa ciidamadii waa la qabsaday meeshii dib nimankii u qabsaday ama waxaad maqlaysaa ciidankii intay cabsadeen ayba meesha kasoo carareen kasoo cabsadeen يعني وبهالسا isaga daba guurguurayda waay marka horta dhibaato waaye oo meesha taala hadda qasaaraha in dad ku dhinto oo meesha ay dad ku dhintaan hadda meesha ciyaar looma tigin
in lagu dhinto waxa loo tagay saas waay oo ninka haduu yani tuutaha gashado waa geeri iyadoo loo siman yahay hadana dadka ugu horeeya waay inuu isqadimo meesha waa meel goobtii lagu dhimanayo waay meel kasta qof waa ku dhimanayo laakiin goobta cayaar looma tagin adigu maadaama aad ka mid tahay dadka siyaasiyiinta ama waxgaradka ama culimada ka soo jeeda dagaaladu hadda ay ka socdaan marka aad fiiriso doodaadu waxay u eg tahay mid aad ku durayso dawladda mowqifkaaga marka adiga lagu weydiiyo sideed shabaab in dagaal lala galo oo lala dagaalamo oo dhibaatooyinka wadanka ay ku hayaan laga qabto sideed u aragtaa horta dawladda anigu hadda dawladda ma durin laakiin waxaan dareemayaa yani naqsi meel aan isleeyahay meel hebla sidaas wax ka qaldan yihiin baan ishaarayaa ma ahane anigu dawladda saad u dhigayso ma aragtay masalada kulama qabo waxa weeyaan yani qaabkii wax u socdeen ayaan sawirayaa iyo qaabka natiijo lagu gaari karayo marka taas way mid aan ka hadlay ma ahana anigu hadda dawladda kuma haysto malihi abaabulkii ay dawladda u gashay dagaalka shabaab oo laga warqabo madaxweynaha iyo xukuumaddu juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen in madaxweynuhu intaasoo bilood uu fadhiyay Dhuusamareeb in deegaano badan oo ay shabaab ku sugnaayeen laga saaray taasi miyaysan adiga kuugu muuqan inay guul tahay dadaalka dawladdu gashay ama madaxweynuhu uu bixiyay waa wax muuqda waa runta meelo badan oo joogeen shabaab inay ka baxeen waa wax sax oo run walow meelaha dagaal ka dhacay ay yar yihiin wax saas u badan aysan ahayn laakiin midda meesha taala waxay tahay labadii gobol oo dagaalku ka bilaabdo la yiri ha laga saaro wali sidii nimanku u joogaan degmada maxaan ku yiraahdaa Elboor iyo muxuu ahaa degmadii kale iyo xataa mudug nafteeda tuulooyinka muxuu ahaa caad iyo dhul badan ay wali sidii u taagan yihiin waa meeqa muddada ka soo wareegay marka la fiiriyo meelaha laga saaray meelaha ay ku jiraan marka la isbarbar dhigo waxa la oran karaa deegaanada laga saaraa badan hadda inay markaad fiiriso mudug galguduud markaad fiiriso deegaanadii ay ku sugnaayeen iyo hadda kuway ku hareen waa 2 iyo 3 deegaan ay ku hareen aan dhihi karaa hadda lama dhihi karo waana waxaan u dhihi karaa horta anigu qaacido waxa jirta shariicada la yiraahdo usulka marka la joogo الحكم على شيء فرع عن تصوره دولك باحديسه marka taqaano oo inta laga baxay iyo inta hore loo joogay iyo inta lagu baaqiyay marka taqaanaad dhihi kartaa wallahi inta laga baxaa badan ama inta lagu jiraa badan ama intaas ayar markaas aad go'aan gaari kartaa laakiin anoo kale hadda waxaan dhihi karaa kaliya nimanku meesha waa joogaano waa dagaalamayaan midugna waa joogaan galgaduud waa joogaan shabeelle hoos waa joogaan intii kale iska badaa nimanku waa niman dawladda aad horay marka loo fiiriyo waqtiga dheer oo ay ku soo jireen xaaladda Soomaaliya marka loo fiiriyo waqti badan bay ay soo jireen niman muddo gaaban lagu suulin karo maaha ama dagaal lagaga guuleysan karo maaha laakiin haddana xoogii iyo awoodii iyo dardartii ay shalay lahaayeen ma isleedahay maanta waa leeyihiin waa isleeyahay oo muxuu ahaay culays badan baa fuulay oo dhinacyo badan ka fuulay waa wax loo jeedo xagga military ahaan dagaal ahaan markii la yiraahdo xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo xagga islaamka iyo dacaayada markii la yiraahdo meelo badan baa culays laga saaro dawladda ay ka saartay haddana saasay tahay nimanku wali waxa weeye saaxada dhulka marka la eego masaaxada ay fadhiyeen wali waxa waaye nimankii dhulkii sidii ay u joogaan waay waxa laga qabtay marka la eego ay yar yihiin dhulkii kale sidii u joogaan waa nimanku wali waa shaqeynayaan waa haystaan dhulkooda maamulayaan deegaanada ay maamulayaan waa deegaanada jubbooyinka iyo maxaan ku raraa koonfur galbeed iyo shabeellaha hoose dhexe hiiraan markii hirshabeelle markii la yiraahdo waxa laga magaciisay karaa waxaan maleynaa inay yihiin magaalada qayb ka mid ah hiiraan iyo muxuu ahaa shabeellaha dhexe qayb ka mid ah laakiin inta kale galmudug la yiraahdana wali waa joogan galmudug meel kaliya hal gobol oo la dhihi karo gobolkaas waa laga bixiyay ilaa yawmina hada lama hayo adiga sidoo u aragtaa dagaalka shabaab lagu qaaday adiga Dr. Umar ahaan sidoo u aragtaa
سواء دجال كواس على وجهه دجال كواس دولة يدوح كدحيا iyo shacab موقفكaaga adiga waa sidee موقفكaaga ku aadan dagaalka lagu qaaday shabaab waa sidee موقفكي waa ujeedada yani meeshii dalku dawladdu u baahan yahay dawladdiina haddaan hal meel laga muxuu ahay maamulkii ka socon oo dawladnimadii aysan shaqaynayn ummadda dhibaato u baahanayda waa lagu qasban yahay lama huraayo saas waxaad la socotaa in dhowrkii cisho u dambeeyay in tallaabooyin guul lagu tilmaami karo inay gaartay dawladda Soomaaliya hadday tahay ku beeristii dalada bulshada bariga Afrika oo qabantaynta hubka iyo diin cafinta sidoo aragtaa والله taas waxa weeyaan tilaabooyinkaas waxa la oran karaa tilaabooyin aad iyo aad u qiimo badan waaye oo dawladda ay ku tilaabsatay oo Ilaahay maartay ay ku guuleysataan oran lahaa oo dadaalkaas waa dadaal soo dabayilay oo ma hadda dawladdan mid ay ayadu qabatay ma aha waxa weeyaan waa dadaal dawladihii ka horeeyay ay soo bilaabeen oo inta soo socday oo maalinba meel soo maray marka waa guul wanaagsan aan u arkaa oo Soomaaliya soo hoyatay arinta gaar ahaan waxa weeyaan arinta aan ka hadlayo ahayd ciidanka dhibaatada haysata xagga muxuu aan ku yiraahdaa hubka xaqiisa iyo tababarada waxaas oo dhan dhaqaale ku xiran yihiin qalabayn ku xiran yihiin hubay ku xiran yihiin hadii wadan caqabateen ay saaran tahay wax ma qaban karayo oo sidii la rabo ma qaban karo marka arintaas hadda dhacday waxay saacidaydaa in ciidankaas dib loo tababaro ama dib loo qalabeeyo wax badan bay u sahlaysaa dawladda Soomaaliya saasaan u arkaa waxaa jirta dadka qaar in ay qabaan dawladdu markii hore dagaalka dardartii ay ku bilowday inuusan hadda dagaalka ku socdo oo gaabis yahay arintaasi ma isleedahay hadday sii socoto waxaa suurtagal inay shabaabku soo laba kaclayaan والله waxa taas cabiri kara oo dadka saaxada ama dagaalka meesha uu ka socdo dawladdu dagaalka aan joojinay ma ayna oranin dagaalkan hadda ciidan baa wada maahan mas'uuliyiinta dawladdu ma wadaan dawladdiina shaqada laga sugayaa dagaalka kaliya ma aha intaasoo mashruuca laga raba ama in ay hirgeliso muddada yar oo kooban haysato inay hirgelido marka inay hal mid ku mashquulsanateedo oo dhibaatadeeda ilaa marka haddana waxa muuqata meelo badan in ay shaqadu ka socoto kana waa socotaa waa u jeedna hawlihii kale oo dhinacyadii kale loo baahnaa way socotaa marka dib uma arkaay tilaabooyin waxaa jira dadka qaar ay aad ugu amaaneen dawladda hadda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh oo leeyahay amnigii magaalada Muqdisho oo waxaad moodaa inuu intii hore dhaamo marka aad fiiriso hadda xaaladdu sida ay tahay maxaa sababay inay dawladdani ku guuleysato xaqiijinta amniga dawladihii horena inay ku fashilmaan والله waxaan isleeyahay saddex qodob hadii laga fiiriyo in arintaas sababta aan maleynaya waa mid waxaan isleeyahay ciidan loo soo tababaray oo maaragtay dhalinyaro maaragtay shaqadaas qabanaya la keenay waa dareensanahay waxaan kaloo dareensanahay dawladdu tasfiyo wax la yiraahdo inay soo bidayo hay'adaheeda amniga iyo kuwa kalaba in awal يعني nimanka la dirirayo shabaabka iyo dawladdu waa isku milnaayeen waa isku dhex jireen marka nimaad qorshe dagaal u dajinaydo haddana xafiiskaaga fadhiya oo shaqadiisi yani waa wax fashilkii dadkii hore dhan haystay weey marka kan waxaan dareemayaa in xafiisyadii ka sifeeyeen oo rag badan ay carareen qaarna xabsiyada ay tageen qaarna ay xataa haday joogan aysan siday rabaan u hadli karin oo aysan warka u sheegi karin marka waxaan isleeyahay qodobkaasna waa qodob meesha ku jira qodobka saddexaadna waxa weeyaan daacadnimada dawladda ku jirta aan isleeyahay oo in shaqadu inay daacad ka tahay inay wax gaaraan oo xaqiijiyaan arrinkaas oo mas'uuliyiinta dawladda aan isleeyahay aad bay uga muuqataa taas ayaa sabab ah isleeyahay waxa kaloo jirto eedeymo dadka qaar ay qabaan inay dow tahay in loo jeediyo dawladda oo ku saabsan dhinaca musuqmaasuqa in la leeyahay weli waxaa jira musuqmaasuq ballaaran oo ku dhex milmay hay'adaha dawladda adigu ma qabtaa inuu musuqmaasuq sidoo aragtaa musuqmaasuq horta Soomaali meeradeedu waaye oo Soomaali ma joogto balka deemi wax la og yahay laakiin hadda dhibka yaala wuxuu yahay dal baahan oo dadkiisu baahan yihiin wax yar oo aan macna lahayn markii loo dhiibo wixii yarka ah nin walba hayba inuu isku dayayaa inuu sidoo uga faa'iideysan karo
ودنكيسا وريحدو أما قاب قبيل هكو ريحدو أما قاب كوحيات هكو ريحدو أما قاب شخصيات هكو ريحدو نول باهبا وحسلي أما حوغا ماشي كريديتا وإحساسها ماشي وجرا ده نفط بني آدم كانوا اسك الدبيعي hay-adaha muraaqabada oo dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa la dirirkooda iyo kuwaasuna waxay u baahan yihiin yacni tababar iyo aqoon in loo dhiso oo markaas ummadii qofkii waxaa lagu soo qabtaa naftiisa uu helo yacni qaab loola dhaqmo oo markaa loo mariyo oo ummadda kalena ay ku qanacdo kuwaana qaato leanna caqaabta waxaa loo fuliyaa qofkii horena in dambiga loo marsiiyo kan kalena uu kuwaana qaato marka dadku inay ku qancaan sida wax u socdaan wax sax ah inay yihiin marka waxaan is leeyahay qaabka oo yani musuqmaasuq waa jira shaki ma laha musuqmaasuqa waxyaalaha asaasiga u ah oo dhibka ugu weyn haystana waxa waa qaabka dawladdu ku dhisan tahaba oo 4.5 la yiraahdo oo markii shaqaale dawlad loo baahdo leeyahay xildhibaankaaga keen ama oday dhaqameedkaaga keen ama filankeen wax iyaga dhamaan nooca ku dhisan laga musuqmaasuq laga weymaayo qofkii waxa lumay marka aqoon-yahankii ama kartida lahaa ama wax qaba lahaa meeshaas ku lumay marka xagee lagu ka qaadaysa wax saa ku dhisan iyada dhanba marka musuqmaasuq la diriirayda meel kasta uu yaalaaba marka qof bad ku jiro la biyaha iska dhowraya waxa jirta arinay dad badan siyaabo kala duwan u fasireen oo ku saabsan safarada madaxweynaha oo dalka dibadiisa ku aado dadka qaar waxay leeyihiin dunidu marka madaxweyne uu dalkiisa ka dhoofo oo soo laabto waa inuu warbixin siiyaa wixii uu safarkiisii kala soo kulmay sideed u aragtaa safarada madaxweynaha bismillaah awalan horta wadan kasta oo dunida wadamada adduunka dawladaha qof dawlad kasta duruufteeda ku xisaabtantaa madaxweynuhuna waxa weeye waa ninkii ummaddu loo doortay inuu dalkan hogaamiyo oo muxuu ahaay higsiga ama hadafka loo socdo ummaddu ay leedahay dawladnimadeeda inuu asagu horkaco ninkii loo doortay weeyaan marka meel alla meeshu isleeyahay alla ilaahay maanta meelaba u baahan inaad arintaas ka hirgeliso ama aad tagto ama aad ka xaqiijiso maslaxadda ummadda ay ku jirto waxaan qabaa inuu tagaanaysan ceeb ahayn dadkii dawladaha kale مثلا hay-adahu markii la dirayo ama wasiirada la dirayo ama safiirada la dirayo waxay ku xirantaa markastaba yani aqoonta qofkaas uu leeyahay iyo kartida uu leeyahay iyo qaabka uu xaqiijin kara danta ummadda ay leedahay hadafka ummadda ay leedahay ma qaban kara qof kale oo markaas yani kamida hay-adii kamida ama dawladii kamida booskii madaxweynaha ma buuxi karaa waa su'aasha marka hadaan buuxi karin madaxweynaha waa ku qasban yahay inuu safro oo markaas uu dantii maslaxadda ummadda shaqooyinka qaarkood waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha iska leh xukuumadda waa fulintii madaxweynihii dawladdu waxay ka kooban tahay waa madaxtooyada xukuumadda baarlamaanka iyo garsoorka shaqooyin badan oo hadda waxa ku dhex jira shaqooyinkii ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhu qabanayo arintaas ka waxaad kala saartaa waxna waa waxa nadariga ah oo khiyaaliga ah oo maartay la qoray waxa saas la leeyahay waxna waa waaqac dhabta ah oo socda waaqac iyo waxa nadarigaana waxa u dhaxaysa masaafo dheer u dhaxaysa masaafada danta la leeyahay wax loo qorana waxa way maslaxadda ummadda in la xaqiijiyo marka hadii madaxtooyadii dalku ay aragtay in ay ku jirto maslaxadda ummaddu in sidaan la yeelo hadii la yeelo ceeb ma aha hadii la arko in ku fiican tahay in ra'iisul wasaaruhu baxo ama wasiirku uu baxo ama safiirkii loo daayo hadba waxay ku xiran tahay sida ay u aragto hay-adda hogaaminaysa dalku si u aragto waay adigu sidaad u aragtaa inta soo safaraa madaxweynuhu inuu baxo halka ra'iisul wasaaruhuna shaqadiisii laga yaabo in safarada qaarkood sidaad u aragtaa anigu waxaan u arkaa madaxweynuhu ku tuhmi maayo aqoon darro ku tuhmi maayo khibrad yarana ku tuhmi maayo daacad yarana ku tuhmi maayo intaba waxaan maleynayaa in Soomaaliya ka fiican maanta waa yari marka boqolkiiba kalsooni buuxdaan ku qaba inuu sida uu u dhaqmayaa sax inay tahay bini aadan waa khalad lagama waayo wax waa dhici marka aad hadda sidii wax u socdaan aad fiiriso adiga Dr. Umar ahaan
ma jiraan waxyaabaad is leedahay qaabka hadda ay u socdaan waa qaldanta hotelooyin oo aad gudbin lahayd oo systemka dowladnimada Soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamza qaabka ay wax u socdaan ma qanaacad baa kaaga muuqata mise waxyaabaad is leedahay xagga iyo xagga hadii waxaas lagu dari lahaa waa qanaacadu waa arrin nisbiya waaye waxba moogtahay boqolkiiba intaas waaye qanaacadaadu waa mise meelo badan oo durayo oo aan aad iyo aad wax xanuunsanaya waa jira oo dawladdan ay ku dhaqmayso khaasatan haba ahaato dhulalka iyo marka laga hadlayo deegaanka magaalada Muqdisho dadka shacabka inaan ku weydiino waa rabay marka arrinkaas oo kale arrin aad u xanuun badan weey yani xuquuqda qofka muwaadinka in la dhawro oo la tixgeliyo oo dawladda ay ka muuqato dhaqankeeda danqasho ay dadkeeda u danqanaydo waa wax dawladnimo loo dhisay dawladdu marka laakiin dawladdu inay u dhaqanto sidii nimankii Mooriyanta ahaa oo nahaysan jiro kale oo qor inta soo qaad dadka daba xabad ka gelido waa dhaqan soo jireen hay fool xumaayo aan ka soo gudubno lahayn amad ka raysata marka hadii kiyo kale uu dawladda ka yimaado يعني وأرن عادي هذا حنون بدن واي وحلا زوق الواقع هيستا دولة لكن دولة إني ماله أي دولة دجنين اسمياش الدولة ده إن أي دولة مركي أباها تودت كدجن أي كررت أو أي مالك لا دجيسو ميانا أرن صح هاي مالها أي دولة أباها أنت هنا كوش قيسو وسيسم كي دولة نمدو لو أباها إن دتك لو وش قي دتك دجنا مركي اللي يرهدو هلا جررو إن مال إدلا لو دادي وحصح معه لكن دتك هدي مالك كلا دي بدجين لو سمعيو والدولة دون أي استعمال محاكو جبان وحبكم ما جبنا ورنتا لكن ماشي وحي على دولة دي محمد سياد بري الله نحرسته وقامني سقاشن كودي ماشي قبح دولة دي محمد كويرة هذا عبد القاسم أو أيضا مرجع إسكاء هذا وحوين عن قبني waxay soo bilaabatay labadii kun qaybad ka Soomaa labadii kun dawladda saraftiisa aad wax qaybad ka hayd labadii kun gaabiska dhinac kaga jirtay dib wala tabartaada la fataqullah ma sadactum wa awoodada beenta taala shaqeeya Abd Qaasim waxaan qabaa in daacada inuu ahaayo aad iyo aad u dadaalay laakiin darfiga jiray ayaa maaragtay ka tirabatay waagaas maadaama aad insider ahayd dadkii la shaqeynayay ku jirtay Abd Qaasim adinka inaad qabsateen baa idinku dhaliilaa marka ma qabsanay ninkaas in la qabsan karo ma in aqoon iyo khibrad iyo daacadnimo walba ayuu ahaa laakiin waqtiga waqti dhib badan ah faragelinta dawliga ahna aad u fara badnay marka dadka dareenka ama fahamka ummaduna waa liig xusuusta hadan dib kugu celiyo intii aad la shaqeynayso waxyaabo ugu yaabka badnaa oo la kulantay maxaa kamid ah intii Abd Qaasim xafiiskiisa ku shaqeynayso maskaxdaadu ma jiraan waxyaabo ilaa wali aysan iloobin markay soo xasuusato waqtigaas ما هبل ما ليه كران magaca sheegin laakiin waxaan noo sheegtaa waxyaabihii dawladnimadu maadaama dadka qaarkood dhalinyarada aysan la socon meeshii laga soo bilaabay waxa weeyaan horta dawladda hadaad aragto dawladda waa sir xafiis dawladeedna waxa ka jira inaad adigu inta tagto banaanka ka sheekaydo wax fiican ma aha sirta dawladda kama hadlaayo waxaan ka hadlaa wacyiga bulshada ka hadlaa waagaas wacyigii bulshada sidoo ahaa waa ku sheegay wacyiga dawladda waa ku sheegay waa aad dadka u hooseeyaan ku yiri jabhada iyo balaayo dadku ma bislaynba baahi waa qabaan laakiin meel baahidoodii meesha ay ka jirto ma yaqaaniin marka taas waa dhibka uu la kulmay maxaan ku raad madaxweyne Abd Qaasim oo la kulmay iyo ragii la shaqeynay marka laakiin xafiiska maxaa ka jiray iyo xafiiska see ahaa iyo arimahaas uma haboona qof mas'uul ka noqday xafiis dawladeed inuu kaga sheekeeyo marka ka soo tag arintan ku saabsan guryaha ay dawladdu ka saartay dadka shacabka ah dad badan aad ay u soo dhaweeyeen inay dawladdu u baahato inay isticmaasho dhismayaasheedii oo dadkii deganaana ay tiraahdo waqti inta loo qabto la yiraahdo ilaa waqtigaas waa ka guureysaan meelaana idin dejina sidee looga soo horjeesan karaa inaad wasaaradii shalay dawladdu deganeed inay dawladdu u baahato ay isticmaasho dhowr qodob aniga yaan dareensanahay oo anigu aan ku durayaa horta waa mid dadkan muddo dheer ay meeshan dawlad Soomaaliyeed oo waqti xataa aan dawladaba jirin ay dadkan meesha deganaayeen meeshuna waa meeshii dalkuna ayakaas kala dalka lagama leh dawladana lagama leh u fiirso dadku ma aha amxaara meesha soo degtay ma
واقف دتك marka madaxtooyada ma gali karaan ma digi karaan ayaga iska leh madaxtooyadu laakiin waa dawladda hadda ku shaqeysa kii waaye dalka laga maamulay laakiin dadka shacabka iska leh ma aha nin gaar inuu iska leeyahay ma waa sax wajida meesha la rabaa waxay tahay qofkan markii dawladii la dib loo soo celiyay dadkii in la nidaamiyo waaye oo shacabkii meeshii dawladdu u baahatay oo marka in lagu shaqeeyo ay tahay in laga saaro meelna la dejiyo dadkii banaanka aan lagu daadin shaqadaas ayaa qabanaya waa su'aasha kale meesha taal waxa iska leh qolada munishibiga oo gobolka ayaa iska leh laakiin waxaad arkaysaa niman military ama booliis oo dadkii dhul ku dilaya oo dhulkii ku magaciisanaya hadii goorma booliis dhul cabiray goorma military dhul cabiray mid walba uu leeyahay dhulkan waa in laga baxaa wali warqadda soo saaro yaa u leh xaq dadka munishibi dhulka yaa bixiya munishibi inay macnaha u timaado dadka la timaado le qofkan dhulkan waxa iska leh saasaas ay tiraahdo dad qofkan ay tiraahdo leeblan ku siiyay yaa laga rabaa waxaad soo ahayd marayihii dekada muqdisho 2006 dabcan gobolka banaadir si fiican uga soo shaqeysay dhaliilaha waxa jiro dhaliilo inta badan hadda loo jeediyo maamulka gobolka banaadir oo la leeyahay magaalada muqdisho waxa ka jira dhibaatooyin badan sida daadadkii markii ay dhaceen dhinacaas ma isleedahay kaalintii gobolka banaadir looga baahnaa gobolka banaadir shaqadii looga baahnaa waxa isleeyahay maba qabtaba maba aadaba xayla gobolka banaadir waxa looga baahnaa magaalada nadaafadeeda waa waxa ugu horeeya dhulka nidaamintiisa waa waxa ugu horeeya qurxinta magaalada qurxiya waa waxa ugu horeeya shaqadiisa deegaanka dadka degan inay kala nidaamiyaan waa waxa shaqadiisa ugu horeeya marka nimanku waxa silaha mararka qaarkood malaha waxa loo soo diraba inay dadka una cashuuraha ka aruuriyaan oo lacagta meel geeyaan lama yaqaan dadka qaar waxay leeyihiin madaxweyne xasan iyo madaxweynihii ku horeeyay farmaajo gobolka banaadir inaysan qeyr iyo wanaag u wadin waxa marqaati ka ah farmaajona wuxuu gobolka u magacaabay Cumar Filish ninka madaxweyne xasan madaali dadka gobolka u dhashay waxay leeyihiin kumanaan kun oo aqoon-yahano ah oo la dhihi karo dadkan markay timaado aqoontii ilaan gobolku wuxuu u baahan yahay magaaladu waa caasimadii waa muraayada gobolka qofka waddanka yimaado caasimada ka soo dego waa halkii uu ka tusaale qaadanayo ma la dhihi karaa marka labadoodaba isku mid ay ahaayeen gobolka qeyr uma wadin ma anigu naqdigaas waxaan qabaa meel kale u laayahay عمر فيلش iyo ninka la yiraahdo Yusuf Madaale iyo ragii kalaba ma qabo inay fahmi waayeen shaqada gobolka Banaadir way fahmi karaan way garan karaan waa dad waa dadkii la rabay oo u danqanayay waay laakiin culays ka weyn waxaan qabaa anigu culays ka weyn ayaa qasbaya oo ku qasbaya inay waxba qaba waayeen maxaa kamid ah dawladii waxay u isticmaalaydaa gobolkii Banaadir inay wixii dawladda dhaxalahayd ay gobolka Banaadir lagu socodsiiyo dhaqaalihii uu lahaa gobolka Banaadir ee la rabay inuu caafimaadkiisa laga shaqeeyo nadaafadii looga shaqeeyo biyihii qashinka ah galay looga shaqeeyo adaa ku magaalada muqdisho xilliga hadda roobku ay da'ayeen wado walba waxa fadhiistay biya fadhiistay adigoo lambar 4 jooga hadaa u socoto Zoobe waxay kugu qaadanaysaa waqti badan ay kugu qaadanaysaa gobolka adduunka lagu nool yahay maanta marka masiibooyinka noocaas oo kale ay dhacaan waa in talaabo degdeg ah waa in laga qaadaa yani gobolka waxa la rabay meeshii biyo fadhiistaan isla habeenkii inuu nadiifiyo hadduu gacmaha ka xiran yahay fiiriya gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa soo magacaabay madaxtooyada laga soo magacaabay waa shaqaale ka tirsan madaxtooyada waa waa la socdaa madaxweynuhu laakiin hay'adaha hoos yimaada waa madaxtooyada hoos yimaada waa macnaha waxa leedahay dhaqaalihii loogu talagalay gobolka waxay ku baxdaa maya ninka hadii la soo magacaabo markastaba wuxuu ku xiran yahay ninkii soo magacaabay asagoo amarka sugaya waxaas ma qabtaa xagga ma tiyaala magaciisa ma ahay taas marka madaxweynuhu dayaca ee dhibaatada ka tahay gobolka raaliyo ka yahay macnaha waxaan qarmay taas ay afka ay geeyeen macnaha hadiiba magaaladii ay saan tahay oo ay magaaladii u baahan tahay inay u baahan tahay magaaladii maanta nadaafad xawli ah marka fiiriso nadaafad waa ka jirtaa magaalada meelo nadiifiyo waa jiraan
laakiin nadaafadii magaalada loogu talagalay nadaafada ma la rabo in wax laga qabto ma yaa hortaay dhibaatada in laga qabto ma la yani madaxweynaha gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir xorriyadiisa hal la siiyo si uu shaqada u qabto dhaqaalihii ha loo daayo madaxweynaha go'aanka qaadashadiisa ha loo daayo shaqaalihiisa inuu maamulo ha loo daayo faragelinta laga dhaafo intaas ma heli kartaa isaga magaalada nadiifinaya sanad gudihiisa magaalada soo bilicda banaanka yaa haysto marka intaas aad sheegtay yaa ku haysta dawladda dhexe ka dhici ma dhinaca ra'iisul wasaaraha mise madaxtooyada ma kala aqaan aniga adaa sheegay yani gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu u xil saaran yahay wuxuu u xil saaran yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu hagaajiyo bilicda caasimada dawlad goboleedka Galmudug madaxeeda madaxweynaha soo magacaaba dawlad goboleedka Galmudug waa maamul dawladda dhexe hoostaga in la magacaabo maxaa keenay waligeed ay jirtay madaxweynaha iskala authority ilaa waagiisii bare tii ku horeysay mar walba gobolka waxa soo taas bas soo leeskama deeno fadala looma bedelin 3 milyan ee ka baraso gobolkan ma degana federaalkii ama la isku haysta caasimadii waa loo diidan yahay inay maxbuus u noqdaan xafiiska madaxweynaha mid walba laga soo haddaan su'aash adiga ku weydiiyo maxaa keenay kula tahay macnaha in xataa Muqdisho in gobolka Banaadir federaalkii shalay lagu ballamay uu qaadan waayo maxaa keenay aniga dad ku fudoodo waxaan isleeyahay ma fikirkaaga sheegaysaa waxa keenay waxa weeye nin kastoo madaxweynaha meesha yimaada intuusan marka hore imaan wuxuu leeyahay war gobolka Banaadir sida loo dhaamo laakiin markuu xafiiska soo farmaajo Umar Filisho magacaabay isuga dawladka dhameystay markuu meesha soo fariisto wuxuu arkayaa inuu u baahan yahay gobolka Banaadir inuu soo gudoomiyo gobolka noqdo madaxweyne kasta markuu soo fariisto meesha Shariifa joogay Xasana yimid Farmaajo yimid Xasana hadana jooga mid wax ka bedel lama arko mid walba wuxuu rabaa inuu yiraahdo wariyahay soo qaba hawsha wariyahay xaqaas oo hay'adiisu u diraya mid walba waxa waaye ninku wuxuuna askari camal oo kala waay bal askari miyaa wadanku qabanaa oo nadiifinaa nimanka wax lagu eedeeyo meesha ma yaalin dhibaatadaas si kastoo xal loogu helo xalay u baahan tahay dawladda dhexe gobolka Banaadir qabadkiisu wuxuu ku soo koobmay laba laabiyo la nadiifiyo iyo hal jido oo la dhiso tabartooda la tabarta noocaas marka aad fiiriso hada wax ninka marka la xisaabtamayo waxba loo dhiibaa macnaha ninka wuxuu ku magacaaban yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir mujarrad magaca asaa ku magacaaban asigi marka waxa laga rabaa hadii ay lala haysto awoodi haduu qofka lala haysto asagay tahay inuu yiraahdo ama awoodi inuu wareejiyo yiraahdo aniga shaqadan ma qaban karo ama inuu awoodi si daacadnimo u qaato waayo asagay ku dhacaysaa ceedda hadda maanta meelaha qaarkood ka taagan dabcan mar walba aan leenahay Muqdisho macnaheedu ma aha inuu Muqdisho hagaajinteeda from A to Z inuu sameeyo qasab laakiin meelaha qaarkood isugu Cabdishakuur eedda dhibaatada ka taagan Muqdisho oo biyaha iyo wixii la halmaala dhibaatadeeda Yuusuf Madaal ma laha waxa iskale madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamza iskale iyo wasiirka arrimaha gudaha oo muxuu ahaa fiqi ragaas iskale لأنه هذه أود سير هاي معناها قدومي هو مقارصار ما مقارصار هذا الشيء كو قولانيس أنا مقارصار نقطة هذه يقول عيسى واجباتك أنت كو كلفة الدولة تسوي شغالة مية ديدك الدولة هذه وحاط سيستم كاسيدا سيستم كو ونقوم كراوين يجران مركز قاركود dad madax oo xil inta loo dhiibay inta xil loo dhiibay markay arkeen in xilkii lala haysto yiraahdeen waa kana xilkii qaata taas waa un rag yar laga hela yani marka fiiriso laakiin inuu iska qaato danbiday haduu xogaagiisa inuu iska qaato ayuu danbiday bananka inta joogi la xogaaga mushaarkaaga yarka walaahi gobolka Banaadir dadka degan markaad fiiriso dadkaas ayaga is abaabulay wax badan ayaga qabtay laakiin kaalintii maamulka ma dhahayno maamulku wax ma qaban laakiin baahida marka la fiiriyo meesha jirta iyo inta uu qabtay waxa la karaa boqolkiiba waa 10 ama waa 20% in maamulku tabartiisa waxa uu qabtay wax aad iyo aad u badan maxaa kamid ah laakiin tabartiisa wuxuu ka badan yahay wadaadu qoday qashinkii maanta magaalada marka xiliyada ay roobka tirada ka batay roobku markuu yimaado gobolada dhan la waayay سوى هذا حسابتنا قبل صدق وجوهنا عاصمة جوجنا عاصمة أديك ما ملكي مدحنا كتحي هو ذا خبن أو أديك قبل كاسونا كم هو ذكرتي سو ما أعرف أنت مدينة كسب بالله أيربورك أنت سمرة يدوت أنت تفر ما أعرف ميادي ما لا يرير على دي مركز خير أنا هذا وحن جوجي حمر يعني حمر جوجي نعم
meelo badan oo dee waa aragtay wadanku 36 sano burbursanaa meel walba waxay noqdeen boholi iyo biyo noqdeen haddana sidaas oo ay tahay dhaqaale dawli oo baahan tahay gobolka banaadir wax ka soo baxa kuma filla meel mid iyo labo ina isku aadisaa wad qabataa hawada qaban oo awoodaadu ma dhama inaad wada qabato laakiin meelaha qaarkood waa in la yiraahdo war shaqadan maamulka gobolka ma aha buundo yar oo la dhisay iyo jid la falay iyo mararka qaar adigu su'aal ku weydiinaa hadda tahay maanta mesela gudoomiyaha gobolka banaadir laga gobolka banaadir gudoomiyaha markaad magacaas tii talahaas aad wadato wax badan aad adduunka ka tahay wax badan ayaad ka tahay wax badan oo heshiisaad geli kartaa hay'ado badan iyo wax qalab badan aad keeni kartaa qalabkaas ajnabi iyo muxuu ahaa umad kasta meeshii keeni kartaa inay dhisaan laakiin amnigoodii iyo dadkaas markay meesha yimaadaan anigu waxaan qabaa laba dhinac ma ka damaano qaadi karaa dhinac kuwa dagaalku ku jira dhinacna dadka shacabka naftooda ma ka damaano qaadi karaa waa maya anigu meesha aad mas'uuliyadda ka tiri madaxtooyada anigu waxaan dhihi lahaa laba mas'uuliyad waxaan saari lahaa labo midda ugu horeysa qolada shaqada loo diray oo hormuud u yahay Madaali daacad kama aha inay legacy ka tagaan inay wax qabtaan ummadan ay mas'uuliyadda u qaadeen oo magaalada Muqdisho 3-4 milyan oo qof ay degan inay si daacadnimo ah oo lillaah ugu shaqeeyaan kama go'naan qabaanay midna waa jirtaa qofku markii mas'uuliyad adiga markaad mas'uul tahay shaqo lagu diro yay tahay inuu ku xisaabtamo shacabka la rabo inuu dadka wax garadka ah ayaa la rabaa inay yiraahdaan war shaqadii Sheekh Umar oo lagu diray oo 1 iyo 2 iyo 3 ahayd maxaad ka qabatay waxa ugu horeeyay media ugu horeeyay in la soo galo fadhiisiyo qofkii mas'uula oo la yiraahdo qofkan shaqadiisu waa qabyo in la soo fadhiisiyo la yiraahdo war shalay wixii adiga lagu dhibtay maxaad ka qabatay intaan dhibaato jirto mas'uuliyaddu marka kaliis ma aha oo gobolka xataa marka la yiraahdo shakhsiyo ka yahay inkastoo hogaankii asaga yahay oo mas'uuliyadii ay ku dhacayso asaga laakiin waxa laga rabo hadaadan qaban karin hadaa tiri waxaan maanta aniga u bareeray inaan xilkan qabto ama ka maqnaa meeshii ama ka muuqo arinta gobolka waa ka gudbaynaa ma ay ka gudbin laba qodob aan dhihi lahayn horta daacadnimo hadii la yiraahdo dawladnimo meesha hadii la yiraahdo daacadnimo la yiraahdo Yuusuf Madaali ka daacadsan oo meesha imaan lahaa aniga maba ii muuqato koow Yuusuf Madaali daacadnimadiisa lama rabo shaqada uu qabanayo ayaa la rabaa in la arko hadaa daacad tahay ay dheenayso anaga aan dhamaysto walaalo dawladda dhexe markii la yiraahdana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waxaan aaminsanahay dadka dad ugu daacadsan hadda intay taariikhdan soo martay inay yihiin aragtidan ka hadlaya fiiri aragtidan ka hadlaya laakiin hagaagsiga ku jira meesha waxay tahay gobolka banaadir uma baahna niyad sami iyo waa ku duceynaa uma baahna laakiin wax qabad u baahan yihiin wax qabadku waxay tahay gobolka in la yiraahdo ismaamula oo hay'adihii ka shaqeyn lahaa intaan ismaamula lagu dhihin Sheekh Umar ismaamula intaan lagu dhihin waa loo imaan doona ismaamulada laakiin hadda oo lagu jiro waqtigan oo aad adiga mas'uul tahay Soomaha wax qabadkaaga in la arko la dareemo oo ay dadku arkaan inaad wax qabanayso bulshadu waa marqaati hadda soo lagama hadlayo arinta amaanka dadku mucaarad iyo muxaafid waxay qireen amniga Muqdisho inuu soo hagaajiyo hadda Yuusuf Madaali Soomaha يوسف مدالي أمني قبل كوحو أدوينه وكحتى أنا ما أقال لكن ما أنت لو حلله وسؤال يا دولة دولة كلا جرتوا صحيحين أسوي دي قبل كبنادر قبل كيا حكومة قبل كمركل لفيري قبل كيا حكومة قبل كعيدا ما قبل كإسكان وشلون ليه مجرى كم مدح هذا قبل كوايس أسرع أمان تله شقادة الدولة دول لكن عيدا ضدك شقادة قبتي ما هي شقادة أمان تله يوسف عليه هدي قبل كنا بدي حاجات يوسف عليه هذا واحد ربطاوي حنا يا يوسف يقول لي حدا وانا أنا مدان قبع قبل كبنادر هذا أنا مركز جوبي وحد علي وحد جبتي سوقي وينا وحمرويني نعم سوقي مركي وجبتي هبينكي أنا وجوب جوبان ها ودقيقة ساعدوا كدي بنتجي جوبته ودبكوا كقرحي نعم وحكد علي waxaa la yiri qaar kamid ah shirkadaha korontada ayaa qalad ka dhacay dabku meesha soo ka bilowday naam biliilqa badan ka dhacday dad badan oo dan yar oo hanti meesha ku lahaa ayaa hantidoodii la biliilqaystay waxaa timid labo dabdamis mid hormuud ay lahayd iyo mid gobolka uu lahaa isla markiiba way ku filaan waayeen inay dabka damiyaan maadaama hal biyo soo qaadeen biyihiina ku filaan waayeen hadii marka nidaamka marka la fiiriyo shirkaasi markuu dhacay
waxaa la rabay inuu gobolka banaadir inuu baaritaan sameeyo baaritaanka uu sameynayana inuu inta si cadaalad baaritaan u sameeyo dadkii dabkan ka dambeeyay ilan marar badanaa dab dhacay in si hadda kadib macnaha dabka dhici doona in looga gaashaanto in cadaalad la sameeyo in la yiraahdo dabkan muxuu soobsaday in dadkii dabkan sababay loo yeero oo la soo fadhiisiyo oo la yiraahdo dabkan wuxuu ka dhashay markaad magaalada fiiriso jidadka aqligaaga diiday korontada hadda saas gacanta u taagto waa arkaysaa waxyaabahaas oo dhan waa shaqada maamulka gobolka banaadir inuu wax ka qabto in laga soo tago markii la yiraahdo xitaa si shilalkan oo kale markay dhacayaan mar walba in loo diyaar garoobo inay jiraan ciidamo goobta sida ugu dhaqsaha badantay soo gaaraan dadka hantidooda la badbaadiyo dabkaasna la damiyo inta badan dhibaatooyinka aad arkayso ku muuqanayo waa dayac marka fiiriso dayacada meeshii ka muuqata si kula tahay waa adigu waa sharxayda sida isku daydo laakiin waxa la rabo mataqaan meesha uu yaala ma qabo gobolka banaadir in inta garan waaye iyo ka badan ba waa garanaya laakiin tabarta ayaa meesha dhigayda aqoonteediina waa leeyahay waa waxa ugu yaro la qabto inaad markii dabka u dhaco ciidan aad meesha keento kadibna aad dadka hantidoodii badbaadiso kadib damdabis aad meeshii aad dabkii damiso waa shaqada ugu yaro la qaban karo isku cabirina ida warka gobolka banaadir ma fahmi waayeen baahida meesha taala qalabka loo baahan yahay sida wax looga qabanayo iyo waxaas oo dhan way fahmi karaan laakiin tabarta meesha dhigtaan ku leeyahay hadalkayga dhan waxa meesha ku salaysan yahay awood waay awoodii nimanka la siiyay laha qalabkan dabdamiska in la keeno wax wad magaalada ku filan tabartan oo ku soo celcelinayso intaas ay ku egtaa goormay dhamaanay tabartan waxay amaanay maanta la siiyo hadda maanta bari hadda la siiyo sanad gudiga aad magaalada yaa siinay sugaan inay siiyaan waa taqaan madaxtooyada laga siinaa maxamed madaxtooyada ka rabtaa dadka cashuur ka qaaday ma waxa cashuurta dadka ka qaado soo qaadi ma adeegeedu sameeyay soo qaadi xageeyay intuu geeyaa soo lama qaato bangaal ugu soo lacagtina ka bacdina dawladda maamulaan baarlamaanka xagga lacag laga siiyo oo lacagta gobolka banaadir dawladdan dhamo taagan oo adiga oo meesha fadhida xagee lacag ka qaadata dawladda cashuuray qaadaa cashuurta xagee qaadata cashuurta gobolka banaadir gobolka badana laga qaadaa gobolka banaadir meelan ahayn cashuur laga qaadayo gobolka banaadir meelan ahayn cashuur laga qaadayo ma jirto gobolka banaadir laga maxaad sheegay Yusuf maxaad kula dareeraa marka macnaha dawladda dhamo masruufa dawladda uu masruufo masruufkii la rabaa in cadaalad loo sameeyo cadaalad waxaa jirta dadka qaarkood marka ay ka hadlayaan hadda rajada ay dawladda ka qabaan waxaa moodaa kalsooni badan hadda in lagu qabo xukuumadda ama dawladda madaxweyne xasan haddana waxaa soo kordhaysa arrin cusub waxaa jirta la leeyahay madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu baarlamaanka inuu marsiiyo wax ka bedelka dastuurka iyo inuu ka dhigo systemka dawladnimada Soomaaliya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen arintaasi ma suurtagal ay kula tahay markaad fiiriso bismillaah horta awalan dawladda hadda jirto madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo rubahantii waxaan isleeyahay wii horena waan soo joognay oo waan arkaynay sida ay wax socdeen kuwana waa arkaynaa sida wax u socdaan dawladdan wax badan oo Soomaaliya oo dhan taabatana waa ay qabteen wax loo jeedo la inkiri kareen waaye bal waxay mudan yihiin in lagu amaano lagu taxgeliyo ay mudan yihiin wax kale oo ka sii badana marka tiraado wax badan la qabtay marka tiraado dad badan waa isweydiin karaan Sheekh Umar Dr. Umar wax qabadku sheegayo kow laba saddex balno timaan maxaa arrimahan deen caafiska iyo waxaan ka hadlayaa guul ma loo qaadan karaa deen lagu lahaa in lagu yiraahdo deena laga cafiyo ma noqon kartaa guul adiga aad sheegan karto guul aad gartay weeyaan in deen laga cafiyo أنا دينتان دولتي دولتي كهر مدنية أنت صاقش ربضنا واسك سعودي ومدة صومالية واحد سكو سعودي ما يقول من نقول كرتا دين صوماليا لقولها ولا قاعد في يقول دولة الشيعان كرتو إني جارتي وليس دولة صاحنا ومدة صومالية صاحنا ولا قاضي وليس وحوي يعني وليس هم نقول كرتا دولة صاحنا هذا قولش محتى وقت وطاوية أنت قصاب سن هوكا لفصحي دولته maadaama aad goobjoog u ahayd dawladda dhexdeeda markii la fiiriyo waxa jiro hanti dawladdu leedahay مثلا hubko kale
hub ay dawladdu lahayd ama dareys ciidamo oo ay dawladdu lahayd oo isla markii la keeno isagoo cusub maalinta ku xigta lagu arkayay shabaabkii oo xiran hubkan hadda dawladda naloo fasaxay walqabateyntii hubkoona laga qaaday dawladdu inay inta hub soo iibsato oo bari lagu arko hubkii oo dawladdu ay soo iibsato dhinaca kale horta waxaa jirta cabsidaas ma ku muuqataa waxaa jirta dad badan oo aad wax u odorasa waxay yiraahdeen cunaqabateynta laga qaaday ee Soomaaliya hubka ma aha cunaqabateyn laga qaaday oo kaliya dawladda Soomaaliya laakiin waa cunaqabateyn iyadana laga qaaday nimankii ay hayeen oo dawladda ay la diriirayeen qolada kale بمعنى هاوي ها igu marqaati furaysa marka in hubka dawladda ay bari soo gadato waxa suurtagal in dhinaca kale lagu arko macna qolasaas oo cabareeda waa jirtaa adiga se kuma tahay laakiin anu ma qabo anu waxa qaba dawladdu baahida ay u baahneed inay iswaydo baahida ay u baahneed inay ciidan tababarato baahida ay u baahneed dadka muxuu ahaayay hay'adaheeda ka shaqeeya in ay tababar siido oo dad xulato oo dhaqaale ay la baxdo dhaqaalihii wixii ay culayskii hayay dhinac marka fiirso positive aad u fiican dhinaca negative waa mas'uuliyad culus oo looga baahan yahay dawladdu mas'uuliyadaas oo fuulaysa qalabkaas markuu yimaado inuusan qalabkaas u dayacmin oo gacan cadow uusan gelin ayada laga rabaa dawladda ayadana culays kale oo meesha yaalla weeye wasax aad arrintaas marka walaaca jiro oo dawladda moogtahay wax markaad maqashay wax qalab kugu soo yiraahdaan baa liido wixii shalay dhacay raadkii qoyanaa oo shalay oo dareyskii ciidamada maanta loo keenay ma u maleynaa inay ka dhacday dawladda xasan sheekh dawladihii ka horeeyay ciidamo waxa la arkay waxa la sheegay in adigu waxaad ka hadlaysaa dareys la qaatad ka hadlaysaa hadii xafiiskii dawladda dhex fadhiyay oo rag ay ka dhex shaqeynayeen maxaad kala sugaydaa waa ta hadda ka hadlayna tasfiyada dawladana ay soo beeday wax ugu horeeyay shaqo ka bilowdaa waa gartay sama jeedin marka taas waxa ku tusaydaa inay wixii ay gacan ku dhigtana inay waxeeda tabarteeda inay qaban karaydo haddaan gacan kale ka xoog badan aysan meel kale wax ka keenay talaabo walba oo marka hadda maanta markii la fiiriyo deyn cafinta Soomaaliya waxa laga yaabaa deyntii waa laga cafiyay in lacag badan oo deyn la dalbado oo magacii dawladnimadii Soomaaliya lagu dalbado oo lacagahaasina sidii shalay dhacday oo kale mar kale la yiraahdo Soomaaliya deyn lagu leeyahay ma dhici karto waa aragti aad u liidata weeyaan laanahu dawladdu waxay hoggaan u tahay dalka danihiisana ka shaqeynayda meel alla meeshii danaha dalku gashana waa u galaydaa waa shalay kuwii joogay maxay u deynta u galeen dalka u danaynaya Soomaaliya ku deyn gaar ah dadka qaar waxa laga yaabaa maxaa lagu galay deynta maxaa lagu galay deyntaas ilaa hadda waxa lagu celceliyaa deyna la galay ma faahfaahin kartaa deynta dhamaysto dagaalkii 77 waxa loo galay masdaqay ahaayeen ya waxa soo dhama meesha ku yaala dawlad markay deyn galaydo baahi jirta oo dalku qabo ay u gashaa maahane shakhsi deyn lama siiyo deyn shakhsi deyn u qaatay ma aha magaca dawladii Soomaaliya hadii deyn u baahato mustaqbalka way qaadanayaan wax u diidaaya ma laha shalaba way qaateen kuwan maxaa u diidma ee dhalaakana waa gartay marka laga yaabaa deyn magac dawladeed lagu galay oo magac dawladeed lagu soo qaaday in si shakhsi ah loo isticmaalo adiga ma waalantahay horta deynta dawladda gashay dawladana qaadanaya dawladana adeegii qabanaydo intaas waa dawladdu maaha dhismo maaha dawladdu waa shakhsi hor kacay dawladdu waa shakhsiyaad oo dawladda matalaya madaxweyne gudoomiye baarlamaan waa shakhsiyaadkaas magacii dawladda inta lagu soo qaado deyn magaca dawladda ninka ku hadlaya shakhsi caadi ma aha fiiriya maslaxa caam oo ka shaqeynaya dan guud oo ka shaqeynaa ninkaas dantii guud u hergelinaya hadduu dan gaar ah leeyahay dukaankiisu furanaya daniisa gaarka oo qabsanaa danta guud markuu ka shaqeynayana lama yiraahdo hebel waa in hebel inaad tiraahdo ma laana dantii guud adigu aad ka mid tahay dadka u shaqeynayo ka mid yahay uu ku shaqeynayo marka saas in la soo tixgeliyo waayo dawladnimada saas oo daliil waxa jirta dadka qaarkood u jeediyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud aragtidadan raba inaan ogaado daliishaasi waxay tahay dadka madaxweynuhu u xushay markuu magacaabay ra'iisul wasaaraha dadka ka tirsan xukuumadda dadka loo xushay markaad fiiriso shakhsi dad badan oo waxa ku jira shaqadaas ku haboon laakiin dadka qaar waxa ku jira khibradoodu dhinaca shaqada marka la barbar dhigo waa xilka ay hayaan aysan ku filnayn
la leeyahay madaxweynuhu wuxuu doortay saaxiibadii iyo dadkii shalay la soo halgamay dadkii shalay mucaaradka la ahaa arrintaasi ma isleedahay way caawinaysaa dowladnimada Soomaaliya horta dhowr qodob ku jirta meeshaas oo la rabo in la fahmo madaxweyne xasan sheekh markaad fiirido dadka uu dowladnimada u doortay iyo sida uu wada shaqeynayaan waa tiim isku xiran tiimka isku xiran oo wada jirka ah oo aan iskhilaafayna dan waxay u tahay dalka dhamadan oo dowladnimadii sidaas dan u ah laakiin dawlad ayada dhan kala jeeda oo ra'iisul wasaare dhan u socdo madaxweynuhu dhinac u socdo wasiirku dhinac u socdo mid walba uu dhinac u rabo dhaqaaqayo taas waa fasaad ma aha dawlad lama yahay soo dhamaystay taas waa midaas waxaan qabaa xasan intuu dadaali karo waa dadaalay dadkii ku haboonaana wuu keenay laakiin cunsur kale asagana ku dhagan oo ah nidaamka 4.5 ka ah qabiilka ku dhisana wuxuu keenayaa in dad badan u baahnaa oo shaqadan uga baahnaa uusan boos u helin taasa keenayda oo mid aan haboonayn waxba qaban karin oo meesha soo fariisto taasana keenayda magaalada Muqdisho waa joogtay xilliyadii burburka waqtigii dowladii madaxweyne Cabdiqaasim magaalada waxaa ka jiray ururo bulsho ama waxaan la yiraahdo civil society oo ururada bulshadu waa dad shakhsiyaad ka socday qaybaha kala duwan bulshada dhaqaatiirta culimada diinka dadka qaybaha kala duwan bulshada dadka socday dadkaasi waxay u doodi jireen magaalada waxyaabaha ka dhaca tacdiyada dhibaatooyinka magaalada ka dhaca ayay ka hadli jireen hadda waxaad moodaa inay meesha ka baxeen maxaa u sababa taas waxaan oran karaa horta dadkaas dhowr magac ay leeyihiin dadkaas oo soo sheegtay muxuu ahaa civil society aad soo sheegtay annaka waqtiga Cabdiqaasim aan joognay waqtigaas yani shaqadooda markaad fiiriday waxay qabanayaan dadkaas waa dadka ay ku awoodaha dibadda iyo faragelinta dalka lagu hayo meesha loo soo maro waa dadkaas runta markaad aragto ma aha inay ka shaqeynayaan danka iyo shaqada ku magacaabayeen waxay ku magacaabayeen waxay qabanayaan waa kala laba wax alla waxa dalka ka socday gudbiyaan oo qaadaan oo cidda ay meesha u joogaan u gudbiyaan waxa hadda lagu leeyahay hay'adaha meesha shaqo qabatay hay'adaha xagga ku qabatay hay'adaha magaciis ku qabatay waxay aruurinayaan xogtii dalku lahaay aruurinayaan waa dadka loo baahnaa dalka in laga qabto dalka soo ma jeedin dawladana marka kullama dawladda Soomaaliya ay xoogaysatana kullama ay kuwan dowrkooda soo yaraado dowrkooda soo yaraana laano baahidii loo qabaya maxay ciriiriya la gelinaya cudurka ay wadeena la dareemaya markaas ay saa ku soo yaraanaya waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada Soomaalida sideed u aragtaa in maamulkii Puntland iyo maamulkii Puntland in maamulkii Qaatumo iyo Puntland inay kala baxaan oo laba maamul goboleed ay noqdaan laba dawlad goboleed ay noqdaan sidoo aragtaa والله arrimahaas waa arin cusub oo moogtahay anagu waxa hore laga cabiri karo yani deegaankan hadda muxuu ahaa Qaatumo ay joogeen iyo Puntland marka hore way iska tirsanayeen laakiin maamul ahaan Soomaaliland ka tirsanayeen oo xaggaas maamulkan waqooyiga anagu aan idhaahno waqooyiga anagu Soomaaliland yani ayaka magaca la baxay laakiin anagu gobolada waqooyiga aan idhaahno Soomaaliya min dibadeedaan anagu aaminsanahay soo ma jeedid marka dagaalkan dhacay in ka soo ka xunnahay oo Soomaalidu inay isku dhibaatoota ay ka fiican tahay wada hadal inay waxeeda ku dhamaysato hadee markii horeba oo nidaamka Puntland asaasay waxay kamid ahaayeen nidaamkii asaasay Puntland lagu asaasay kamid ahaayeen haddana waxay goosteen yani sida ka muuqatay in ay ku gaar isu taagaan laakiin su'aashu waxay tahay ma istaagi karaan oo ma buuxin karaan nidaamkii laga rabay iyo qaabkii laga rabay nidaamka dawlad goboleedka laga rabay buuxin karaan waxa labada sano loo siiyay sidaas oo dawladdu u siiyay intii laba sano ayaa leedin eegay balina soo buuxidaan shuruudaha loogu baahan yahay marka maxay noqon karaan nidaamku u yaala soo dastuurka qori ma dawlad goboleedka qaabka loo dhisaa shuruudaha laga rabaa inay soo buuxiyaan marka haddii ay buuxiyaan ahlan wa sahlan haddii buuxi waayaan walaalahooda la joogaa dhib ma laha rajada hadda ku muuqata dawladda Soomaaliya hadda dariiqa ay hayso sanad iyo bar laba sano ku dhow yahay madaxweyne Xasan
ma isleedahay labada sano u hartay ballanqaadyadii uu sameeyey madaxweynuhu sidii uu u ballanqaaday buu kaga soo bixi karaa ma isleedahay waa isleeyahay inuu inta uu tabartiisu la eg tahay awood baa horta meesha lagu shaqeeyo sida siyaasad marka la yiraahdo waxa la siyaasad ficil mumkin hale waxa suurtagalka inaad soo bido waxa marka doorasho la gelayo afka laga sheegayo waxa la yiraahdo waa waxa khiyaaliga dadweynaha loo sheego laakiin xaqa qabanka awooddaada ku xiranta haddii ay dawladdu hesho awoodii ay u baahneed يعني هذا واحد يشهد الدستور كي واحد بدل إذا نظام كي هو وزارها أي بدل إذا هاتري نظام كي واحد بدل كروا برلمان سيد الدستور كوا عضينا شدوا أركتها يعني هو حكم برلمان ما سيد أركتنا ترى يعني شعبنا يعني أدو شعب عادي وسوق جوج متيد أخويهم بعدها qof xil soo qabtay doctor ha tahay waxaad qiimeyn kartaa meesha hadda la joogo iyo xaaladaas isbedelkaas duu yimaado madaxweynuhu ku adkaysto ama ku guuleysto in baarlamaanka uu mariyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen dastuurka hadda lagu dhaqmana uu yahay mid qabali oo federaal oo 4.5 ma isqaban kartaa dastuurka hadda lagu dhaqmo iyo qaabka u dhisan yahay qaabka dhibaatada dawladnimada Soomaaliyeed ragaadiyo waay qaabka دكتور حسن الشيخ ودانا وقابك كليه داوي Soomaaliya ku heshiisay ugu dhibaato ka jirta laakiin hadda Soomaali u taala Soomaalida labadii kun intay isku timid ay nidaamkan federaalka ku heshiisay hadda Xasan gurigiisa ka hagaajimaaye baarlamaanku geeyo baarlamaankuna Soomaaliya oo matala baarlamaankaas markuu ansixiyo shuruudii dastuurku qoray uu raaco ahlan wa sahlan nin diidi kara male حسن الله نسبة ما هي برلمان قبل دلالة ليه. هذه شيء دورك. مدحويني هذا متعرفان. مدحويني كحيل. حكوا تغيير. حكوا تغيير يعني نظام كان فوضى رئيس الوزراء إيوه مدحويني ما راح يسلق جله. أماشي كبحاي. دولة سكوت توصلنا أمر كالغاضنا إذا ماشي إيمانه. ولا لا حساب تملي يرى وحنا القبطي وحنا حد بلا دور على ما بتقني هذا الدولة فشل. أنت أو تقيب شجع. وصومالي هذا دور يصدق كان. القبيل كدي بيوحي هذا. دي وحكينا يعني وكوم على الدستور بقرية. ولا تختار. دستور كعليا هي أو تقيب شجع وحلو حلينا يا. taas marka suuqa ugu gudbi kara madaxweynaha hada awoodi waa la qabsay madaxweyne ku xigeenay jooga meesha qofkii hada magacaas uu culays ku hayay aniga waxaan qabaa qofka Soomaaliga ah oo hawsha ka soo bixi kara meesha inta laba wada dhalata waa ahaatay taas qiimo leh laakiin reehbel in meesha ka muuqdaan oo la yiraahdo sanamkii loo dhigo waa hab dhaqanka Soomaalida siyaasadda 33 sano la bartay sanamkii waa yaala meesha hada waa yaala laakiin magac kale loo yeelay waa gartay marka hada dhaqan gal waa kula noqon kara adiga waa mid ugu fiican qabo ka fiican waxa hada yaala aasan qaba waa ku toosan yahay xasan boqolkiiba boqol ku toosan yahay waa gartay waxa qabada oo isleeda waa ka hor iman karaan baarlamaankaas siyaasaddu qaata waa si loo maamulo oo ninka la yiraahdo Axmed Bahalki Sheekh Aadan Madoobe iyo ragiisa tiimkiisa u maamulaan ay ku xiran tahay يا أصحابتيس هذه أغلبية هلان يكون صحيان هذا هو صعوناي هذه وأنا تيهرم بالله فرديناي وكلام مش فيه